doorashadii ka dhacday Somaliland waa mid taariikh ah run ahaantii waana mid habboon in lagu daydo haddii runta laga hadlayo balse ka soo tagtaas codayntan sheegaynaa waxaad moodaa inay waqti qaadanayso in lagu dhawaaqo madaxweynihii raayay iyo xisbigii raayay taasna waxay keeni kartaa dhibaato aad u fara badan haddii ay daahdo oo maalinta dambe ay ku sii darsanto balse waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay ka joogaan Somaliland in ay deganaan iyo amni iyo nabad u horseedaan dadkooda because waanu aragnay dagaal badan baa dalkeena ka dhacay dhibaato fara badan baa dalkeena ka dhacday gaajo fara badan baa dalkeena ka dhacday sanadihii maxaan ku raadaa 30 sano ka badanba Soomaaliya iyo goobo badan ee Soomaalida degto run ahaantii waxa ka muuqato ma aragtay dhibaato badan waayo sidaas daraadeed way waxa dadka qaxooti u aadeen Mareykan iyo Yurub iyo goobo kale iyo even wadamada dariska oo aan la joognaa haddaba in nabadda loo horseedo dadka waa muhiim in dadka maxaan ku raaddaa mas'uuliyiinta ahna ay ka fiirsadaan hadalladoodana waa muhiim taas waa arinta Somaliland